هاني صوبنا سيده هو يديد قرصو عنا تيم سيده حلدا سنت دافي إيو صعد قرصنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا شبكة laga barto cilmiga computerka luqadaha ee Samawada Academy waxaan ku guda jirnay barashada graphic design ka gaar ahaan wali asaaskan ku guda jirnaa. Insha Allah maanta waxaynu qaadan doonaa wax la dhaho layers. Layerska wuxuu ka tirsan yahay qaybta panelska gaar ahaan qaybtan intuu caan ku yahay oo dhammaan versionska kala duwan ay Photoshop ka dad fiirisid halkan uu ku yaalaa. marka layerska mararka qaar haduu lacala ka maqnaado oo kale hada meesha laga soo bixiyo waan wada naqaana Windows-ka waaye Windows ku xisaabsan yahay layerska hadaan sidaan dhaho waa ka layers kuma jiro laakiin hadaan Windows tago kaliya tigtaan saari doona tig ama F7 hadaan dhaho F7 uu ka qaadmi doona F7 uu igu soo noqon doona sida caadigan layer micnihiisa lakab waaye lakab layerska waa waxa ugu muhiimsan Photoshop marka laga soo tago toolska number 1 ah oo qalabkii dhamaayo aad adeegsan lahayd ahaa layerska ku xiga oo wixii aad ku manage gareyn lahayd ileen qalabiskan aad adeegsanaysid sida uu kala maareyn lahayd layerska waaye marka qaabkaas inaad ila fahantidaa rajeynaa mid kale la rabo inaad ogaatidna waxay tahay documenti kasto oo aad sameynaysid ama aad soo furatid wuxuu ka kooban yahay ugu yaraan hal layer any document mid hadda afuratay ba ahaade hadda kan layer background waaye background layer حتى هدي أن دوكمنت عصب سميستو نيو أنده دوكمنت كلا لواي كي هرواكنا كنا واكنا اسكو سايس واي مركا ساسي هذا واحد إنه يسبدل اللي عنا تقدرين ميسا مركا دوكمنت والبعوكو كوينها وغيران هاللير دوكمنت بلا لير ما بجرب ماشان أمران إنا دايركت لغا ما ياو marka saadarteeda layerska waa qaybta ugu muhiimsan marka toolska laga yimaado mid xigta waxay tahay layerka tool walbo aad dooratid iyo wax walbo documentigaagi ku soo ziyaado ama aad ku soo dartid sawir ha ahaado ama wax kale ha ahaadano waxay ka soo muuqan doonaan layerska waa sababta uu muhiimad u yeeshay saale hada text tool hadaan soo qaato inta soo dhigo anoon waxba ku qorin hada maxaa ii soo baxay t layerska marka waa kala aqoonsan kartaa layerka ma textiya ma shayba ma image ba way kala duwan yihiin qaab muuqaaleedkooda hada Loren Ipsum ku qoran hadii aan wax kale ku qoro wixii aan ku qoraa ii soo bixi doono samawada hadaan ku qoro qoraalka samawada inta ka soo bixi doono waa ka marka inta samawada igu qoran intana samawada ku qoran layerkana muxuu yahay text tiidaas aad ku garan kartaa hada layer background layer text layer shayba hadda ku soo dari doona asana sidoo kale waa arki doona qaabku way kaanayo shape layer shapeka asaga sidaan u yeelan doona bahalkan yar oo geeska cornerkan yar uu samaysan doona textiga backgroundka iyo shapeka way kala duwan yihiin saa u jeedid marka hal mar tan aan weyneyno sidaas aan dhihi doona qoraalkeeni iyo kan yeesan isgaarin textiga waa dooranayna waa kana asagana intuu inoo yaala sidoo kale sawir ku soo dari doona hada wixii dhan hada ilaa dhowr saddex layer kala duwan hada noogu jirto oo appearance ahaan xataa kala duwan muuqaal ahaan text shape iyo background hada image ku soo dareyna image qaabkan ugu soo dareyna waa wada naqaana file aan tagina open ama place ama drag and drop qaabka rabtid ugu soo dar noocyadaas kala duwan loogu soo daraa open hadaan dhaho tab cusub ku furi doona laakiin place hadaan dhaho intuu igu dul furi doona marka saadarteed hadda open aan dhahay tab cusub igu furaa marka mar alaala markii waxa lagu soo dooro background ay yihiin ma dhaqaajin kartid ma qaadi kartid meesha ugu hooseysa laga bilaabo wax waaye qaabka loo gaad ugu qaadayna sababtoo waxaan waa u baahan tahay waxa rabta tabkan kale inaad dul keentid hadda ma keeni kartid mana ku suuragelayaan sidoo kale backgroundkan waa ujeedaa qufula ku xiran mar walba layerka ugu hore isku soo furaa automatic background magacaas u qaadan doona loogana ku xirnaan doona looga qaabkee loo qaadaa dhowr qaab kala duwan ay jirto inta qaybtan imaadid double click laba mar click asiisid layer 0 okay dhahdid saas hada qufulku ku qaadnay kana waa kana uu dhaqdhaqaaqi doona oo ujeedana u maleeyna qaabka labaad wuxuu yahay marka la control z aan dhahan soo celiyay qufulka kaliya inaad dul tagtid hal mar click la dhahdid hada waa ka qaabkaas uu ku dhaqdhaqaaqi doona asana waa soo qaadan kartaa meesha aragtida keeni kartaa qaabka saddexaadna wuxuu yahay asagana control z aan dhahan soo celiyo qaabka saddexaad wuxuu yahay qufulka inaan soo qaado qaybtan delete iconka aan keeni doona
sidaasuu ku bixi doonaa hadda waa soo qaadi karaa meesha rabo waa geysan karaa saddexdaas qaabaan uu isticmaalay qaabab kala duwan haddaad taqaanidna falilahi alxamdu hadda saddexdaas qaabaa loogu qaadaa inay fahantaan rajeyna hal mar haddaan kuugu celiyo inta imow meel banaan macnaa qoraalkan ha dul tegin qufulkan ha dul tegin double click laba jeer click ku sii layer 0 kusoo bixi doono okay dheh celi kadib qufulka soo qabo inta keen qaybta delete iconka qufulka soo jiid drag delete icon kusii dhexday delete icon markaa kusii dhexdaynis geesiis hadduu yaalo closekaasa kusoo bixi doono waa ujeedaha umalaynaa waa la dul dhigaa markay gacanta isku bedesho wuu qaadmi doonaa midda xigto hal mar click le kusii qufulka sidaasna wuu ku bixi doonaa qaababkaas kala duwanaa looga loo qaadaa kadibna waa isticmaali kartaa mar allaala markaa looga qaadid aad rabtid layerkan ama taabkan waxa kuugu jira inaad taabka kale aad keentid kaliya waxaad samaynaysaa move toolka soo qabso move toolka markaad soo qabto saan leedheh drag ku suubi and drop kusii dhexday marka horaan u keensanay waa kana sawirka image layerkan asagana waa kana qaabkan uu egyahay layer 1 uu qaadan doonaa kadib image ahaan inta kuugu muujin doonaa dhammaan noocyadan way kala duwan yihiin saa ujeedid kan background layer waaye kan shape layer waaye laakiin shapeku wuxuu kasii yahay rectangle uu ka yahay kan text layer waaye kanna image layer waaye marka sida aan wada fahno hal mid kala rabaa inaan kuu sheego layer ba layerku ka sareeyo wuu qariyaa taasna ila ogow layer ba layerku ka sareeyo wuu qariyaa ilaan waxaan lakabis waaye layer lakab waa mogtahay marka waa isdul saarmi doonaan hal document yaa rabtaa dhowr layer kala duwan inta u isticmaashid manage garaynay kaaga baahan yihiin waa sababtu muhiim u noqday sababtoo ah haddii aad wax iska soo dooratid meeshan iska dhigtid ma iska dhigmaayaane inaad kala manage garay sidaa la rabaa midka soo muuqanayo mid kala dul saarmaayo mid kala qarin doono midka rabtid in lagugu dul qoro hadday qoraal tahay haddii aad sawir tahayna in la dhexgeliyo marka saa darteeda hadda rectangle-kan haddaan ugu soo saraysiin hal mar fiiri rectangle-ka asagaa ugu hooseeya hadda hal gees yar uu ka muuqdaa haddaan ugu soo saraysiino kuwaan dhan wuu qarin doonaa waa kaa qoraalkeynii ma arki dooni buugina hadda dhinacan yar ah ka muuqato sababtu maxaa waaye layerkana weyn haddana asagayaa ugu koray taasaa sababta ah haddii uu yaraan lahaa okay ahaan lahayd way soo wada muuqan lahaayeen haddii la yareeyo fiiri way soo wada muuqanayaan xitaa fiiri samawade waa la dul saaran yahay oo buugyaa kor saaran waa ujeedaa samawada asaa ugu hooseeyo haddaan dhexda keeno ilaan samawada asaa ugu hooseeyo kan ka sareeyaa waaye buugga waaye haddaan samawada dhexda keeno wixii way isbedeli doonaan samawada qoraalkiisa si complete waa loogu jeedaa marka hore waxa qarinaya wuxuu ahaa buuggu ahaa kan uu koreeyaa samawada sidaasuu ku qarin doonaa haddaan ugu hoos mariyo layerba layerku ka sare uu qarinaa hadda samawada uu koreeyo marka meel walba waa ka dhex muuqan karaa backgroundku waa laga dhex arkaa buugga waa laga dhex arkaa shapekina waa laga dhex arkaa laakiin buugga asaga qoraalka ma kormari karo sababtoo ah qoraalkaa sareeyo marka haddii saan aan dhaho oo aan kala kormariyo haddii aan sidaan dhaho oo aan kala kormariyo waka sidaasuu hadda kusoo muuqan doona qoraalkan ku qarsoomi doonaa marka taasna ila ogow muhiimna waaye qaabka u kala kormarinay sidee waaye waxaan rabnaa si basically inaan u sharaxno moogtahay marka layerka ay rabtid leg hal mar click ku sii clickta qabo soo jiid drag markii sidaas ay kugu soo baxdo day wuu ka kormari doonaa haddii aad rabtid inaad u hoos marisid ama hal position lay gadaal inaad u bixdid saan soo jiid wuu ka hoos maray haddii rabtid midka ugu hooseeya inuu noqdane sidaas dheh asaa ugu hooseyn doonaa hadda samawada maba arki doonti sababtoo ah waa la qariyey oo leeradana ka koreeyaan marka qaabka aan u kala kormarinaayo aad shortcut ahaan aad jirto shortcutkoodana waa idiin sheegi doonaa shortcutkiisa waxa waaye tusaale samawada oo kale koran rabaa inaan geeyo waxaan samayn doonaa control curly bracket waa kaa hadda dhinacuu kasoo muuqday weli hal mar fiiri samawada dhexduu ku jiraa waa koran geyn doonaa control curly bracket waa kaa hadduu uu soo kormari hal mar wuu kor u bixi doonaa marka aan raba inuu hal mar kor u baxo curly bracketkaasaan taaban doonaa haddii aan rabo marka aan rabo kor inuu sii baxo control close curly bracket aan taaban doonaa markii aan rabo inuu hoos sii baxno control open curly bracket waa kaa sidaasaan dhihi karaa haddii aan rabo isagoo ugu hooseeya camal in uusan hal mar uusan ii dhaqaaqin meesha ugu sareysa inuu gaaro shortcutkan ka hadlooyaa
meesha ugu sareysa inuu gaaro haddaan rabo control plus shift close curly bracket waa kaasa ugu soo sarmari doona hoostaan uu joogi dhexdaan uu kasoo tagay kan uu ka tagay hal mar oo kor tagay marka haddaan rabo midkan oo hadda isla samoodaha inaan ugu hooseysiiyo control plus shift plus open curly bracket hadda asaa ugu hooseeyo marka qaabkaasna waa isticmaali kartaa qaab kala duwan aad isticmaali kartid waa hadda qaabkaas maanta hordhac aan ugu talagalnay dhowr parts aan ka samayn doonaa ila socda intaan layerka ku jirno sababtoo ah layerka iyo tooliska waa qaybta ugu muhiimsan tool walbo aad soo dooratid manage garayn uu kaaga baahan yahay inaad hadda kala maamushid meesha aad ka manage garayn lahaydna barashada kaaga baahanna waa layerka inta badan dadka layerka xooga ma saaraan xitaa dadka ay wax u bilaaban yihiin layerka si dulmar ay kusoo maraan xooga ma saaraan laakiin waxaa ogaataa layerka meesha muhiimsan inuu yahay qaybtii dhammaayo farsamadii waay kan hadduu qalabki yahay kanna waa farsamadii marka farsamadii dhammaayo waayo oo wixii aad ku qurxisan lahayd aad ku kala manage garayn lahayd aad kala horeysiin lahayd maxaa la dhihi jiray layer hadduu yahay xitaa layernimadiisii aad wax ka bedel ku samayn kartid soo tagasi aad shape u bedeli kartid shape asoo smart object u bedeli kartid marka waa meeshii dhammaayo aad ka manage garan lahayd marka taa aan isla ogaana insha allah aana ku dadaalno hadduu ilaah yira si guud aan ugu wada dadaalno gaar ahaan basic aan ku dadaalno inta badan dadka waxaa laga yaabaa projectiga inay xooga saaraan laakiin anigu mar walba waxaan ku celcelinaa basic xooga hala saara sababtoo ah basic marka aad fahantid baratid si fiican ay kaaga daadegto practice garaysid waxaa kuu fududaan doonta kuu sahlanaan doonta inaad si iskaaga project aad u samaysid uma baahnid wax hadda lagu soo xarxariqay in aad kadaba koobi garaysid adaa samayn karo laakiin haddaadan basicii aadan fahmin kaliya waxaa ku khasbanaan doontaa wixii aan markaa soo doortay inaad dooratid wixii aan sameeyey inaad samaysid kadib haddii wax cusub samey lagu dhowna aadan ba aqooninba sababtoo ah ilaa lagaaga baro ma fahmi doontid marka wax walba basic ay ku salaysan yihiin basic aan isla fahanno aan isla baranno insha allah layerkii tooliskana xooga aan saarno هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 10 كلو كان كحيس بدنا إنه بلنا